بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد marka wax badan aan naftirkeyga ma soo diyaarinin waxa hore inaan soo dulmaro waxyaabaha la yiraahdo talawuthul bii'a inta arkay markaan diyaariska ku jiray bii'ada saddex shay loo kala qaaday talawuthka ilaa afar shay mar dhulka marna hawada marna biyaha bii'ada ama environmentiga waxyaabaha lagu tilmaamayo ama tacriifaadka markii la sameeyay waxa kamid ahaa talawuthkeeda shay kasto oo bii'ada ku dhacaya oo ka dhigaya غير صالح in lagu noolaado ama غير aamin in ay noloshu ku sii socoto marka mulawithaadka sababa waxa ugu badan laba shay tangible shay la taaban karo malmuus ah iyo shay aan la taaban karin ashyaada marka aan la taaban karin waxa kamid ah sida iftiinka codka heerkulka waxyaabaas wax la taaban kara ma aha biyaha kaleeto saddex shay ugu muhiimsan oo talawuthadka aan arkay waxa waa biyaha iyo dhulka iyo hawada biyaha kale qaabka ay talawuth u noqdaan waxa kamid ah in biyaha jawdadooda ay yaraadaan biyaha quality-gooda markay yaraadaan already waxay noqdeen leeyahay biyo mutalawith ah oo khatarna ku keeni kara insaanka salaamadiisa ama nabadgelyadiisa biyaha marka mutalawithka biyahaas ku jiro waxa keeni karo bii'ada meeshaas ay ku dhaxyaalaan biyaha inay talawuthkooda imaado sida badaha ama badweynta muxiidaadka iyo bihaarka waxa kale oo jir biyaha ma joofiye wax la dhaho ma joofiye waa biyaha gudaha ku jiro ceelka iyo dhulka gudihiisa ku jiro kuwaasna talawuthkooda waxay ku imaadaan la yiri waxyaabahan bacriminta loo isticmaalo iyo mubidaat xashari xayawaan xasharaadka looga hortago iyo biyaha liidada sirfu sixiga oo musqulaha iyo biyaha wasaqda qaada kuwaas ugu badan saddex shay ugu badan ee wasaqeeya biyaha joofiga biyaha la dhaho waxayna dhahaan yaani inta wax diyaarana waxaan ku arkay shay aan aad u la yaabo waxay leeyihiin marka talawuthka noocaas oo dhaco ma joofiga markay waxyaabaas mubidaadka iyo asmandiga iyo waxyaabaas oo talawuth ku dhaco in cilaaj lagu sameeyo biyaha joofiga waxay qaadanaysaa alaaf siniin kumanaan sano ay qaadanaysaa in la cilaajiyo talawuthkaas waa shay naxdin la warantii yaani takhayal hadda waxaan joognaa 2000 miilaad sayidina ciisa آلاف السنين قاعدين مركو الله معناه بي xilligaas uu soo qoobay ilaa hadda laga ma gaarsiin karo talawuthkooda marka shay khatar aad u badan waay biyo kale waxa jira talawuth marka laga hadlayo ma sadxi biyo laho biyaha kor agaaga dhulka waxay ka yihiin 70% ayagan waxa talawuthkooda sameeya sunta iyo bacrimintaas iyo waxyaabahaas oo nafs al-ashyaa oo ma joofi ka sameeya muxiidaadka kale waa ku dhacaalira badweynta caarada muxiidaad badweynta anaga Soomaaliya dhana badweyn buxeerana waxay dhahaan badaha ama bahra badiyarta laha sida badda caas badda baxul meydka kale ayagana waxyaabo badan ku dhaco ay ugu badan yihiin naftado kale ta marka mid maanta laga hadlay oo talawuthul hawa la dhaaf biyaha sida talawuth u noqdaan waxa ugu weyn wax leeyahay ihtibaas xaraari macnaha marka heerkulka oo bato ay ku baxaan waxyaabaha qazaadka ah noocan wuxuu ku imaadaha la yiri mawaad kiimaawi markay hawada gasho maadooyinka chemical materialka markay hawada gasho waxay dhacaan waxaan leeyahay talawuthul hawa laba shay oo kala baxan sida doctorka oo sheegay kaleeto shayna waa tabiici shayna waa Allahu musta'an insaanka sameeyo shayga insaanka oo sameeyo midalan waa shirkadihii warshadihii aan dhaho baawurti diyaaradihii waxyaabaha soo kaleeto oo qaac soo saaray shayga tabiiciga ah waa bacaadka ka imaada burkaanada markay burkaano dhacdo ay bacaad noqoto bacaadkaas kale markuu hawada galo waa ashyaa غير tabiiciga ee hawada talawuthka ku sameeya waxa kale oo kamid ah qaabaad duurka kaymaha markay gubtaan oo kale waa iska gubtaan kaymaha markay gubtaan oo kale waxa ka dhasho kaleeta hawada talawuthka ku sameeya waa ashyaada dabiiciga ah waxa la dhahaa marka hawo wasaqowga magaalooyin badan adduunka kaalintooda kaga jiro oo magaalooyinka ugu badan yani cadad sukaanka markuu badan yahay baawurtiga badan warshadaha badan magaalada koowaad waxa la yiraahdaa Karachi iyo New Delhi koowaad aan dhihin Karachi iyo New Delhi iyo Bakin iyo Qaahira waxay ku jiraan liiska wadamada ugu sareeya ee talawuthul hawa ku dhaco laakiin sida u kala horeeyaan qodobka saddexaad oo leeyahay ayadana talawuth turba carada inay ku dhacdo talawuth ciida oo dhulka ayadana waxa leeyahay waa nooc kamid ah noocyada talawuthka ayadana waxay ku imaataa dhowr shay carada oo imtisaas ku sameeysa waxaan leeyahay smoothing ama siimooga carada oo imtisaas ku sameeysa mawaadiin mulawith maadooyin halaysan carada markay dhuuqdo kaleeto talawuth ku yimaada la yiri sidoo kaleeto waxa la soo bandhigay marka
afkaaro lagu yareynayo talawudka turbada waxa leeyahay tusaale ahaan oo kale in lagu dadaalo in geedo la beero geedaas marka la beero marka waxay ka hortagaan yiri carrada inay talawud ku dhacdo sidoo kale in xad loo yeelo daaqa xad dhaafka ah ama daaqa jaa'irka waxa la yiraahdaa daaqa jaa'irka waxa la yiraahdaa dhir loogu talagalay in bii'ada ay qayb ka geysato midna bacaadi celinaysa oo kaleeto ama waxbay project loo sameeyay in dhirtaas oo kaleeto aan daaqsin laga dhigin in la adeegsado waxyaabo material ah hadhowti marka laga dhameysana la duugi karo taxallul sameynayaan oo dhulka ku biiraan tusaale ahaan kaleeto balaastiga markuu dhulku carrada ma ka mid noqon karo ajzaa carrada ka mid noqonaya maaha marka waxay leeyihiin waxaa isticmaashiin maadooyin nifaayaadkooda markii la duugo saalix ku ah inay carrada ka mid noqoto carrada dhexgali karto ayadana waa nooc ka mid ah xuluusha in la isticmaalo in xad loo yeelo waxyaabaha la yiraahdo mubiidaat al-xashariga iyo asmandiga iyo dhuxulaha iyo waxaas marka tawsiyaad yar aan isleeyahay way u fiican tahay waxa kale oo jira talawus nooc afraad ah jiro nooc afraad oo aan arkay laakiin badana inta meel yar aan ku arko waxay yiraahdaan talawus dawda waxa la yiraahdaa buuqa dhagaha kaleeto hadda salaana kaleeto aniga tale mikrofon ku hadlaa hadda inta mikrofonka afku dhaweey zaid inuu kugu qayliyo waa dhibsanaysiin holka waxa way aad u dhibsanaysiin waxa nooc ka talawus dawda ka mid ah waxay ku leeyihiin marka waxa ka mid ah sawdka gaariyaasha oo qaraabka kaleeto in magaalooyinka laga bixiyo oo markii meel sakan la joogo gaariya inta shar la qabto oo zaid u qaylna dadku aan hayaan gaariyaasha warshadaha xaafadaha ku dhaxyaalo aalaadka waaweyn oo mucadaadka oo waxa la masaanic waxa la hayo in laga dheereeyo deegaanka shay muhiim ah hadda dad waxa jiro guriye qaar boosaskoodan waa raqiis ijaarkoodan waa raqiis wax kale ma aha waxa leeyahay shirkadda korontada ku agtaala qofku markuu agdago maanta dhan waxa ku aqeelinay motorkii oo shirkadda ku aqeelinay saasoon ijaarka raqiis u noqday booskana saasoo raqiis ugu noqday marka waa talawus dawdaa'iga waay marka dhalinyarada doorka ka aadan maxay yihiin in ay environment-ka ilaaliyaan runtii dhalinyarada door khaas kuma aadan doorhum ka ay door oo fardi mujtamac ka tirsan waay laakiin se waxa la yiraahdaa dhalinyarada waa عنصرك ugu badan mujtamacina 70 ilaa 75 lagu sheegaa marka waxa fahmaysaa amalkiisa kaliya qofka shakhsigiisa tasarrufkiisa shakhsiga ee ka dhalinyar ahaan wuxuu musaaham weyn ka qaadanaa inuu bi'ada ilaaliyo maadaama oo 70% ka yahay marka dhalinyarada waxa u furan sida barnaamijkan oo kale inay ka shaqeeyaan arimaha wacyigelinta inay ka shaqeeyaan wacyigelinta waxyaabaha la xiriira environment-ga ilaalintiisa iyo inay la imaadaan mashaariic ay buxuud sameeyaan diktoorka dad badan jiro oo yaani barnaamijka ku xog leh inay buxuudta sameeyaan ee la geeyaan jihaadka mutakhasiska ee la geeyaan ay ka qayb qaataan horumarinteeda midda kale tan xitaa in la taageero juhud kasta oo iqliimi ah ama juhud caalami sida maalintan oo kale maalinta maalin caalami san jeclahay marka maalmaha caalami oo kale juhudda caalamiga in la taageero dhalinyarada qayb ka geysan kartaan intaas ku soo kooba aad u maasantiin waxaan iloobay in u mahad celiyo dadkii barnaamijkan soo abaabulay igara lahaada waa idin mahad celina shaqo fiican runtii qabateen inkastoo aniga dadkii barnaamijka soo qaban qabi aan kamid ahayn bismikum waxa ugu mahad celina Hormuud iyo Ustaad Cabdalla Barakaat aad u maasantiin fursadan ay siiseen waa idin salaama ciid mubaarak salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh